Ma qiyaasi kartaa xiddig adduunka ugu caansan oo malaayiin dollar xisaabtiisa bangiga ay ugu jirto, haddana u lugeeya sidii qof caadi ah, tukanayana salaadda isagoo dadka dhex jooga, taleefankiisuna uu ka jaban yahay shaashadda? Tani ma ahan sheeko khiyaali ah, waa nolosha dhabta ah ee Sadio Mane. Haddaba saaxiibayaal, waxaan idinkaga soo diyaariyey 10 qodob ee ugu muhiimsan Sadio Mane noloshiisa gaarka ah. Hase yeeshee, is-xasuusin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan follow-na soo dheh. Mahadsanid. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena ugu horeeya, meeshii uu ka yimid iyo carruurnimadii adkayd. Sadio Mane wuxuu ku dhashay tuulada fog ee Bambali oo ku taal koonfurta Senegal. Carruurnimadiisii waxay ahayd mid aad u liidata. Wuxuu ku soo dhex koray guri ay ku nool yihiin 10 qof, isagoo mararka qaar aan heli jirin cunto ku filan. Waalidkiis ma doonayn inay arkaan isagoo ciyaaraya kubadda cagta. Yeelkadeed waxay la rabeen inuu noqdo macallin diimeed ama mid dugsi, balse isagu riyadiisii ayuu raacay. 2. Geeridii aabihii iyo saameynta ay ku yeelatay. Markii uu Sadio ahaa 7 jir, aabihii ayaa geeriyooday kadib markii uu waayay daryeel caafimaad oo degdeg ah, maxaa yeelay tuuladooda ma lahayn isbitaal. Taasina waxay ahayd xanuun weyn oo ku reebtay calaamad noloshiisa oo dhan. Tani waxay dhalisay in Sadio Mane uu ballan qaaday inuu isbitaal u dhisayo tuuladiisa si aanay dadka kale u marin wixii isaga qoyskiisa ku dhacay. 3. Diintiisa iyo is-hoosaysiintiisa. Mane waa qof si weyn ugu dheggan diintiisa Islaamka. Wuxuu tugtaa 5 salaadood, mana cabo khamriga. Waxaa marar badan lagu arkay isagoo ka caawinaya nadiifinta musqulaha masjid ku yaalay magaalada Liverpool, isagoo aan rabin in la sawiro, taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay is-hoosaysiintiisa. 4. Horumarinta tuuladiisa. Sadio Mane wuxuu tuuladiisii Bambali ka dhigay magaalo yar oo casri ah. Waxyaabaha uu ka dhisay waxaa ka mid ah isbitaal weyn oo casri ah oo u adeega malaayiin qof oo gobolkaas degan, dhisidda dugsi sare oo tayo leh, kaabayaasha dhaqaalaha. Wuxuu dhisay saldhig booliis iyo xafiis boosto. 5. Caawinta dadka baahan. Si ka duwan ciyaartoyda kale ee lacagtooda ku bixiya baabuurta raaxada iyo saacadaha qaaliga ah, Mane wuxuu bishii siiyaa qoys kasta oo ku nool gobolkiisa Bambali lacag dhan €70 si ay noloshooda ugu maareeyaan. Sidoo kale, wuxuu ardayda dhigata dugsiyada sare u qaybiyay internet 4G ah iyo laptopyo. 6. Aragtidiisa ku aadan raaxada adduunka. Mane waxaa laga hayaa mar wareysi uu bixinayay hadal caan noqday oo uu ku yiri, "Maxaan u rabaa 10 diyaaradood, 20 saacadood oo diamond ah? Maxay waxyaabahan u qabanayaan adduunka? Waxaan ka doorbidayaa inaan dadkayga caawiyo." Mane wuxuu isticmaalaa taleefan shaashadiisu ay jajaban tahay, isagoo u arka inaysan daruuri ahayn inuu markasta beddelo haddii uu shaqaynayo. 7. Guurka iyo qoyska. Sadio Mane muddo dheer wuxuu noloshiisa gaarka ah ka qarin jiray ama ka ilaalin jiray saxaafadda. Horaantii sanadkii 2024, wuxuu guursaday Aisha Tamba oo ah gabar uu muddo dheer yaqaanay oo reer Senegal ah. Guurkoodu wuxuu ahaa mid fudud oo waafaqsan dhaqanka iyo diinta Islaamka, taas oo mar kale muujinaysa in uu jecel yahay nolosha fudud. 8. Xiriirka uu la leeyahay hooyadiis iyo adeerkiis. Sadio Mane aad ayuu ugu dhow yahay hooyadiis iyo adeerkiis, hase yeeshee wuxuu sheegay in markii uu yaraa ka soo dhuuman jiray si uu u aado tijaabooyinka kubadda cagta ee magaalada Dakar, balse markii dambe ay noqdeen taageerayaashiisa koowaad. Maantana isaga ayaa ah laf-dhabarta nolosha qoyskiisa oo dhan.
9. Safiirka nabadda iyo samafalka. Mane looma arka kaliya ciyaaryahan, balse waa safiir bini'aadanimo. Sanadkii 2022 wuxuu ku guuleystay abaalmarintii ugu horeysay ee Socrates Award, taas oo la siiyo ciyaaryahanka ugu waxqabadka badan dhinaca bulshada iyo samafalka adduunka. 10. Maalgelinta ganacsiga. Marka laga tago samafalka, Mane waa nin mustaqbal u qorsheysan. Wuxuu maalgelin ku sameeyay kooxda kubadda cagta ee Bordeaux Foot 18 oo ku taal dalka Faransiiska, isagoo doonaya in dhalinyarada fursado u furo. Sidoo kale wuxuu leeyahay mashaariic ganacsi oo ka jira dalkiisa Senegal si uu shaqo abuur ugu sameeyo dadkiisa. Ugu dambeyn, saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadka. Sadio Mane wuxuu tusaale nool u yahay in guusha dhabta ahi aysan ku xirnayn koobabka la qaado oo kaliya, balse ay ku xiran tahay raadka aad adduunka uga tagto. Isagu ma ahan qof ku kooban kubadyahan caan ah, ee waa hogaamiye naf-hurid leh oo dalkiisa iyo dadkiisaba u horseeday horumar iyo rajo. Sheekadiisu waxayna baraysaa in qofku uu gaari karo meesha ugu sareysa ee adduunka, haddana uu dhowran karo is-hoosaysiintiisa, isagoo xasuusan meeshii uu ka yimid. Sadio Mane wuxuu dunida baray cashar dahabi ah: inkasta oo kubadda cagtu ay tahay ciyaar, haddana naxariistu waa nolosha dhabta ah. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.